marka hore kusoo dhawaad Cabdiqaadir podcasting inta badan waxaan diirada ku saarnaa ama mar walba qofka markaas marti iigu ah kala hadalaa waxyaabo qofka u soo joogo noloshiisa marka laga soo bilaabo markii uu ku noolaa wadanka Soomaaliya ama wadan kale haduu ku noolaa ilaa inta ka imaado maxaa ku xasuusta badnaa marka laga soo mar waxaa dhacday maalmaha kamid ah anigoo joogo baar dheere oo gaarigii UD-ga ahay aan saageerish u dhigay waxa igu jiray dharkan la dhaho jambluus ama dharka isku jooga oo ay ugu jiraan wada xiran marka anigoo halkaas ku weysa qaadanay saacad maqrib camal ay tahay oo markaas la aan soo galnay oo ilaa qabtay oo ligu dhahay maxaa salaad u tukan weeday markay nimanka si fiican iyo arkeen ay ugu qabsadeen ninka Ethiopian way oo af Soomaali bartay kadib waa li qabtay waa li xiray anigoo welwelsan yar kale oo tanab way ila joogay waxaan u sheeg badrooniga in la xiray isla markiiba adiga waa li kaxeeyay misaahidkii limageen godka liigay ayaga u gaar oo isla baar dheer dhaxdeeda marka mid aan qaraaban oo adeer igu aadan baar dheer caanka ah oo garage u furan ajiro marka yaa ka taqaanay waxa saalida ninkaas aan ka aqaana oo ayaga oo shaqay badan baabuurtooda uga shaqeeyo markii dambe waa li soo siidaaday ala kulli xaal Ethiopian ahaan lagu xiray adoo Soomaali ah ma way dhacaysaa qof oo muwaadin Soomaali ah ma way dhacaysaa xillidaasna wali waxay xilliyadii oo Ethiopian-kan ay wadan ku jireen dadka badan looga shaqeynaayo kadib reera ku yeelata meesha waa xaramna inaan ka soo qabano calashan inta ugu dambeysay kale markaan soo qabano marka reerka soo yeelata kadib oo reer yeelatay ciyaal yeelatay soo baxday inta imaad Sweden adiga intaan imaanin ka hore waan ku noolay isla Kenya waxaan ku noolay 6 sano ilaa 7 sano kadib process oo waxba noo soo baxay Sweden inay na soo qaadato kadibna nolosha halkan waxay u baahan tahay horta awal markaad imaado nolosha hore kale ma qabsanaysid waxay u baahan tahay fahan waxay u baahan tahay waxbarasho waxay u baahan tahay bulshada markaas ku nool wadanka sida aad ugu la qabsan lahayd ama aad isku afahmi lahaydeen process dheeran ka marnay 2 sano oo iskuul la dhiganayo jirto oo SFI-ga la dhaho luqadda la baranayo Spanish for invandrar Soomaaliska marka Soomaalida ay bartaan qof walba ajnabi xataa qof walba ajnabiga oo barto waa sax laakiin 2 sano waa taqaanaa qofka waalid uu ka dambeeyo caruur uu ka dambeeyo ama ehel uu ka dambeeyo 2 sano waxay la tahay 100 sano camal waayo wuxuu ku xisaabtamaa sidoo luqadaas u baran lahaay luqadaas waxaaba ugu muhiimsan sidoo shaqo u heli lahaay wadanka uu la qabsan lahaay oo reerka ama waalidiinta ama awlaada marka ka dambeeyay sidoo ugu mustaqbalkooda ugu dadaal lahaay oo horumar u gaarsiin lahaay laakiin fikrad ahaan anaga wadankan markaan iimaanin waxa naga dhacsaneed bom baashina iska soo daba dhacayso ma shaqeynay maalad waxaan arkay barnaamij qosol ay ka sameeyeen kuwa Carabi dhahayn min Carabi wuxuu ana marka wadanka joogo waxa la isoo sheegay Sweden tagaysaa hadaa shaqeynin iyo hadaa shaqeysid lacag waa lagu siinaa aniga horta runta marka ka hadlo aniga waxa iga dhacsanay lacagta marka ayada inay darbiyada ku dhigeen oo adila hadaalna oo ka soo foqfoqsa laakiin in sahal lagu helaynin ayaa markii dambe ogaaday لازم قف والبنو إنه شقيسته وحي مركز شق أوراد سيدو كدب سيستم كوافنت الحمد لله لكن لبسنا كدب وحود بيلن لدهايان بلابي لابد كون إياه سيدي طبعاً أو سيدي ودنك عن waxbarashadii aan markaas aqoontii aan markaas aan wadankii aan ku shaqeysan jiray xirfadii kamid ahayd sida makaanikada oo kale inaan macnii aan bilaabo udbilinka asaga ama course waxbarasho oo sida qofka macnii uu xirfad uu ku shaqeysan lahaa
xirfadii adiga wax badan ma dhiganin adiga 3 bilood camal aad dhigta asagana wuxuu ku dhamaadaa 2 sano ilaa ay sanadii bar marka maba sii wadeenba shaqo oo waxaan ka helay oo restaurantka ah ama maqaaxad waxa u taqaanaba aan ka helay asagana waxaan ka soo shaqeeyay 2000 waxaan bilaabay 2018 bishii 2 taariikh 5 ilaa iyo bishii 9aad meelaas waana basically waa qofka markuu wadan kala yimaado oo waxyaabo asaasi ka mid ah inuu qofka shaqo raadiyo inuu qofka waxbarasho raadiyo qofka hadba qofka wuxuu noqon karo may 2 sano way yartahay marka xataa lama gaaray luqadda marka loo fiiriyo dad badan way arkeen luqadaha ajnabiga oo adduunka looga hadlo luqadaha ugu dhibka badan ka mid tahay sharci ahaanteeda iyo wixii systemka si fiican hadda la qabsatay wixii waa wada fahantay oo waa shaqaysataa oo hadda waa udbilin maxaa waxbarasho gaar ah waa haysataa dhacdooyin xasaasiya sanadii mudooyinka ugu dambeeyay dhacayo oo gaar ahaan markii adiga lagu fiiri markaan dib u soo koobno Sweden dhexdeeda waxaa sanadkan dilaacay sanadkii hore dhamaadkiisa viruskan coronavirus oo dhacdo dheer idin soo dhex martay coronavirus way jirtaa adiga dhacdooyinkan sida coronavirus oo kale dhacdadeeda ama caqabadaheeda waan la soo kulmay waxaa ka mid ah isla coronaviruska asaga ah inaan iska shakiyo inuu coronaviruska uu yahayo waxaa dhacday maalimaha ka mid anoo shaqo ku jiro in aan shaqada bilaabo subaxdii 6 subaxnimo ama aroortii 12 subaxnimada xilliga ayada ah anoo shaqada aan bilaabay waxaan dhameeyay galabtii 5 galabnimo camal aan dhameeyay waxaan iska dareemay dhaxan yar oo ihayso intaan shaqeynayo dhan waxba ma dareemeyn laakiin galabtii markaan shaqada dhameeyay oo hawsha aan dhameeyay kadib waxaa dhacday in aniga aan dhaxan dareemo ama qabow aan dareemo oo sida qof qarqariye heesoo kale laakiin markaa ayada qandha ima hayso waxba ima hayso laakiin waxaan dareemayaa inaan dhaxmoonayo bis markiiba jaakeetkaygaan soo xirtay gaarigaan soo qaatay kululeysan xataa gaariga shitay wax iga tiri waay kadibna xaafadan imaaday biyaan isku shushubay kadib bahal xabad sooda la dhahayo waxaasaa marsaday saliideeda iyo xabad kiniin camalaan laqay waxaan isku dayay inaan wax yar seexdo oon yani oo fiicnaada camal inaan soo kaco adiga ama anoo xoogaa yar fahmadii iga aan helay inaan soo kaco adiga waxba igama tarin jugjug meeshii leen joogay adiga qandhadii way isii haysay weli maalinka ayada ah hataa waxay ahayd maalin khamiis ahayd marka maalinka khamiistoo dhan markii dambe may astaghfirullah maalinka arbacay ahayd maalinka khamiista ma soo shaqo geli karaan dheh shirkadda aan shaqeynayaan wacay ma soo shaqo geli karo kadib waxaa dhacday okay gurigaaga iska joog haddaa waxaas iska dareenta aali dheh kadib waxaa dhacday in aan wacdo qoladan elva qotiqoyg oo kale caawinaad degdeg inaan helo camal istaalka kadib waxaa dhacday inay igu dhaheen ay su-aalo iga weydiiyeen su-aalahaas inaan ka jawaabo loo baahanya oo ka mid ah calaamadaha lagu garto coronaviruska oo kale waxay igu dhaheen qandho maad dareemaysaa camal dhuunta maa ku xanuunaysa camal forshiil adiga hargab camal maa dareema ama diif maa kaa socdo ama dhabarka maa ku xanuunaya camal adi intaba micnihii su-aalahay wax iga weydiiyeen wax aniga calaamadahaas oo dhan oo viruska ku saabsan intaba iskumaan arag laakiin qandho oo keliyaan isku arkay kadib waxaa dhacday inay igu dhahaan gurigaaga iska jooga caadi waaye waxaas kuma haayo camal wax kalaa ku haayo kole takhtarka markaa kuugu dhow la xiriiray igu dhaheen takhtarna wadankan waxaabay waa la xiriira haddaa dhahdo waa inaad saf u gashaa ama waqti ay qaadataa hore kama helaysid adiga ayaa markuu daalin maalinkaa khamiistoo dhan xanuunkayga qandhadii ahay waan kula jooga habeenka jimcada soo gelayso ayaa waxaa dhacday qandho zaa'id intuu isii qabtay waxaan ku darsaday mantag wax lalaha kadib waxaa dhacday aroortii adiga
5 subaxnimo ama 11 subaxnimo ayaa waxaan wacay isla ayagii su-aashii unbay haddana isla su-aashii ay weydiiyeen markaasa waxaan ku dhahay may aniga waxaan keliyo dareemaya sida ayada madax xanuunaya wax kaloo dheeraad ma jiro oo weliba waxaan dhahay sida kaadideedoo kale kalarkiisu isbedelay camal okay markaas waxay ugu dhaheen biyaha caadiga iska badso bis intaas xanuuna dareemaysa arbacadii oo kugu bilowday ilaa iyo habeenka jimcaha soo oo shaqada ka baaqad ilaa jimcaha xanuunku ku haya ilaa jimcaha marka labaadana wacaysidna marka saddexaad waxaan wacay booliiska markaan mantag isku sii arkay booliiskan wacay waxaan ku yiri aniga xanuun baa ihaayo xanuunkana wuu igu sii zaa'idaya waxaan degdeg qoladan maxaa la dhihi jiray gargaarka degdega oo anaa elfa qotoqoygii aan wacay kadib wax caawinaad waan ka waayey haddii idinka wax ii qaban kartaan camal hal ii qabto kadib waxay ugu dhaheen ku jir qadka ayagii ii xiriiriyeen kadib waxay ayaga ay wada hadlaan isku soo maqnaadaan markii dambe balana ilii qabtay maalinka jimcada saacadda markay tahay 1:00 duhurnimo kadib waxaa dhacday in baarid lagu sameeyo on baarida kadib ay jawaabta xoogaa adiga wax oo aan markaas la siin karo uusan ahayn laakiin emergency oo meesha jiro inaan baxo on aado isbitaalka weyn oo ku yaalo magaalada Kaaristad kadib xagga markaan aaday qol baa lii seexiyay kadib markaa iyada kaadi iyo dhiig ay xasaal iga qaaday kadib waxay ugu yiraahdeen adiga kiliyaashaada si fiican u shaqeyneen iyo dhiig la'aan ku hayso labadaas ay ugu dhaheen laakiin wali laga ma sheegin coronavirus ka laga ma sheegin may marka kiis kale hor la soo baxay kiis kale way xanuunka aniga isbitaalka ugu tagay ma xanuun kale ba heleen goorma marka coronavirus ay ku mashquulayeen waxay ku mashquuleen kiliyaashan aan shaqeyneen alxamdulillah maxaan warku ugu sii dheereeyaa waxaa dhacday in maalinka ayada oo kiliyaasha markii ma shaqeynay u dhayn baarid dib ay baarid u sameeyeen kiliyaashii meel iskaan camal oo kale qof kala gelinayo kiliyaashiisa lagu ogaanayo kale kadib waxay ugu dhaheen sidoo hore ma uu shaqeynayo annaga waxaan u maleynaynaa inay wada fariisteen camal markii dambe niyadii ii dhisantay biyi waxay ugu xireen adiga 7 xabo faleebe markii dambe kaadida caadi ilaa iska bedesho awal kaadida kalar kale u lahaa markii dambe kaadi cad caadi isku bedeshay inay noqoto alxamdulillah marka waxaa dhacday xanuunkii oo qandhadii ahayd had ijaarba waa uu yahay marka ayaga waxay ku mashquulsan yihiin kiliyaasha ama dhiig la'aanta marka ay hayso anigana waxaa welwel iyo murug igu haysaa koronaha ay igu taagan marka mar walba on ayaga ii soo galaan qolka igu soo galaan waxaan dhahaa corona ahay aniga ma iga fiirisaan ayagana waxay ugu dhahayn ma qabtay markii dambe waxaa dhacday maalinka jimcada istaalkan ku jiray waxaase waxay ku mashquulsanayeen kiliyaasha maalinta xigto sidoo kale sabdiye ahayd maalinka axadda habeenkeeda waxay baareen sankay waxay iga geliyeen bahal yaro oo suuf oo dhacaanka lagu qaado kadibna in ay ugu dhahaan waa qabta coronavirus ha 3 maalmood kadib 2 maalmood kadib ay ugu dhahayn corona waa qabta alxamdulillah markii waa li soo kaxeeyay qol oo karantiil caadi ali keenay oo aniga keligii labis oo ku jiraan qof usan iimaan karin marka waxaa dhacday waxaan istaalkaas qolkaas aan ku jiray 19 maalmood 19 maalmood coronavirus ugu maana jirin laakiin xanuunkan kale oo jirkeyga laga helay aan ugu jiray ka xoog badnaa marka ka waran walwalka ka waran corona ka baqaysa xanuun kale lagu sheeg runtii waa taqaanaa qof la dhahay kiliyaashaada ma shaqeynayin dhiig la'aan ku hayso kadibna coronavirus laga helay si aqliyan ahaan adiga la iska soo qaad sidee noqon lahayd
waxaa weliba ani waxaan ku soo waca umaleynaa maalin kadib maalintaas jimcaha miya weekendiga toddobaadka markuu dhammaanaan kusoo wac mar oo lii sheegay Cabdullah Qaadir ayaanta ma arkin wal wac ma ogeyn aan laftirkeen waa maqlab kadib marka maxaa dhacay isbitaalka inta ku jirta kadib inta isbitaalka ku jiro waxaa dhacday in maalintii ka dambeyso marka adiga maalinka sabdida ah oo lagu sheegay taa ayada ah waxaa dhacday in aniga nafsiyad ahaan in aniga aan isla hadlo oon dhaho micnihii maxay tahay waxaan oo hadda laga helay koronihii kiliyaashii dhiiggii markii dambe qof hadde waxaan iska dhaadhiciyay oo markaa iyada ah oo aniga markaan ay nolosha xaggeeda ay dhammaad iga tahay waxaa markaasba go-aansaday qof walbo bini aadan cafis inaan weydiisto maadaama dad anaga muslin aan nahay oo naftaanna meel isku soo jirin qof walbo haddee oo bini aadanna qalad uu galaa dadkii inaan cafis weydiisto oo markaan aan isdhiibo alleheyga aan sidaan shalay ugu dhawaanay si ka daran inaan ugu dhawaado anoo sidaas u xanuunsan oo xataa biyaha jirkeyga u dhibaa inaan soo weyse qaato oon fadhiga ku tukado fadhiga haddaan awood waa inaan jiifka ku tukado samayn jiray marka waxaa dhacday marka inta aan ku jiro 19 maalimood qof bini aadanna kuma imaanayo waxaa jirtay wiil aan walaalanahay marna seedige ah ayaa wuxuu ii keeni jiray raashinka xataa markuu ii keenayo irid asaga wuxuu iska jeclaan jiray inuu gudaha ii soo galo oo ii keeno laakiin anigana mar walba waxaan ka fikiri jiray ilaa nin oo maxaa la dhihi jiray xaas leh caruur leh oo 4 caruur uu aabbo u yahay aniga nin oo qof keligiisaan ahay hadda aan dhinto maanta caruur iga dayacmayn ma jiraan asaa u baqay waayo asaga 4 caruur iyo hooyadooda aa sugayso mar walba wuxuu jeclaan jiray markuu cuntada ii keena inuu gudaha ii soo galo laakiin banaanka aniga ku celin jiray alxamdulillah cuntada xaggeedana ninkaasaaba iga hayabo maasha allah khayr allah siiyo kabar eheladii asxaabtii markii maqleen xaaladaada wallaahi wixii ehel iyo wixii asxaab oo dhan aad bay igaga welwelsanayeen waxaan halkan uga mahad celinaa dhammaantooda hadda ay maqlayin in ay aad iyo aad uga mahadsan yihiin waayo way ii soo duceeyeen qof walbana aad buu igaga murgay alxamdulillah aad bay uga mahadsan yihiin ayagana alxamdulillah waa kan waa hortaagantahay oo ilaahay caafimaad ilaahay weliba waxay ahayd bishii 3aad ahayd 2019 bishii 3aad waa xilligu aad u magaalada taariikh ahaan waxay ahayd 24 may 25 ahayd bishii 3aad 25 ahayd weliba hadda xasuunid gobolka hadda aan degan Vermont waxaa tirada ugu yaraa lagu sheegay amay yaraan oo marka loo wada fiiriyo gobolka dhan laakiin magaaladan hadda degan waxaas ma lahayn kaliya noqotay 19 oo isbitaalka ku jirtay xoogi inta badan waxay ahayd Janice waxa uu heshay xataa ilaahayna toos contact ula yeelan horta qofka muslimka anagana waa aaminsanahay waa taqaanaa qofka muslimka wuxuu aaminsan waxaan ilaaha keenay ilaahan qaadi kara nacam laakiin gaaladu waxay ku sheegayaan ama dhaqaatiirta kale waxaan saan waa kaliisho waana tiirwada sidii la tahay waa kadib ilaah caafimaad ku siiyay laakiin waxaa dhacday maalmaha oo aniga bahasha ay ugu cusbeed hataa ayagoo dhan wada daboolan ama bac ku daboolan oo gacanta oo handiskar ugu jiro oo muraayadina xiran yihiin haddana iga sii fogaani jireen cudurka micnihii effectiga uu lahay keli micnihii cabsida uu leeyahay oo kale qof walba si ugu dhacaa waxaa adna madax xanuun ahaa qaybta ku haysa asaga dhowr nooc waaye sidee hadda dadka ay isku afgarteen qofna sida lafahoo kale u ka galaa qofna dhuuntoo kale qofna sambabadoo kale sida sambabadoo kale sambabada biya fariisanaa qofka siduu uu neef u ku qaato way adkaanaysaa aniga alxamdulillah madaxaas bisa ay xanuunay neefna iguma dhegayna naqasna iguma xiran laakiin hadalkeyga xoogaa yar culeysa ku jiraan jiray
sida qof aan awoodin oo kale hadalka. Naqaskana iguma dhegayn, laakiin waxaa u moodaa inuu naqas igu dhegdhegay, laakiin dadka naqaska ku dhegay ama afka wax loogu xiray ma ahayn, oo oxygen qaadanaya. reerka marka qof kale ku dhacma jirin. reerka ku dhicisho way ku dhacday, sida gabadha la geliyo horta waa ogaa mar karantel soo bixin oo shaki ah macnihii. kadibna ayada laftigeeda way ka siraad korto, macnihii waxay u isticmaashay daawooyin sida daawooyinkan dhireedka oo kale, sida toonta oo kale, malabka oo kale, xabad soodad oo kale, filfish oo kale. kadib طبيعي caadiga alxamdulilah. may ani aadan u faraxsan laftirkeena aan ku arkay maalmihii kadib. wataa xasutay 7 miyaan markaa imaatay kadib dhowr waqti waa isku heli weyn, waa saareen xataa mareen. horta ilaaha waxaan keenay, ilaahana qaado. oo waa taariikh laakiin xasuusteeda aa weligaa haysanaysa, aada u xasuusanaysa. weli waxaa jirtay istaalka anoo saa ugu jiray, xataa wiilal asxaaba aan nahay, sida waa taqaanaa umaleynaa xasan oo kale iyo wiil kaloo adi ma garanaysid, laakiin yuusuf ay dhahaan oo kaaristaa degan. badanaa ayaga aad mar walba ii soo wici jireen oo xaaladeeda waxay marayso weydiin jira oo kale, sidaan dareemayo oo kale. marmarka qaar xataa yuusufka xaafadiisa cunno igaga keeni jiray, isaga laftigiisa iridu intuu ii dhigo iska noqon jiray. kelimaada dareemin, kelima dareemin, halaasaa ku fiicnaya. waqti u heli jirtay salaadaada? salaadeedana waqtiyaan u heli jiray. marka kadib waa soo baxday dadka magaalada xaafada kadib intaana soo bixin ka hore, isla ayagii oo wejiga muraayada iyo wax iga xirxiran jireen oo kale ayaaba imac salaamaynayo, ikaroomaynayo, oo micni in aan wixii uu markaan jirkeyga uu ka bixi ay ogaadeen. mafahanti? farxad dareemaya. aniga waxaan dhariraya weliba inaan banaanka u soo baxo oon gurigeyga aan ku qanacsanayo nolol ahaan. midka isbitaalka xataa waxaa igula yaab badneed, waxaa igu dhacday, waa kaa iloobay. cunto oo waxaa lii keenay oo gariis ah ama doonfaar, qofka yaqaane aa lii keenay. ilaah amarkiis salaadaa ku jiray cuntadaas markii la keenayo. way fiicanta moogta marmarka qaar shaqooyin oo markaa kasoo shaqeysa sida aad wax ku fahmi kartid. waayo gariiskaas waxaan ku garanayay sida maqaayada restaurankiga markaan ka shaqeyni jiray wuxuu yahay gariiska urtiisoo kale. waxaa dhacday anigoo salaad ku jiroo kale, waxaa lii keenay basta macaroni oo doonfaar saaran, hilib doonfaar saaran. salaadii markaan ku jiray oo salaadii aan ku jiray ayaa cuntadii meesha lii keenay. naagtii waxay isku dayday inay ila hadasho ilaan nin salaad ku jiraan ahay, ma hadli karin. nin allihiis hortaagan ahay markaa iyada ah. way iska dhigtay, way iska tagtay. marka waxaa dhacday anoo salaadii ku jiro urtiisa isoo gashay. marka urtiyaa isoo gashay, isla markaa salaada anoo ku jiro waa shikiyey inuu wixii meesha yaallo. salaada markaa dhammaystan aan istikfaaraystay kadibaa waxaan fiiriyay cunadii, waa asagiyoo lasoo shiilay oon aqaanay oon ka saayeybo. marka kadib waa gambaleel yaraan taabtay, waan wacay. gabar ajaaniba ii imaaday oo carabiyad ah oo madaxa u feedan, laakiin muslim sheeganayso. markaasaa waxaan dhahay cunadan maxay tahay? cunadan cunto caadi waaye, cunay igu tiri. markaasaa waxaan dhahay cunto caadi ma hilibka kor saaran muxuu yahay? gariis waa igu tiri. inaan aniga aan gariis cunaynin warqadan kala qoranaan dheh, sababtii liigu keenay maxay tahay? waa idin dacweyna aan dheh. marka waayo aniga istaalka markaan soo seexanaya waxa aniga aan cuno iyo waxaan cunaynin kulli waa wax meel ku qoran waaye. marka hore la sheegay sababtii liigu keenay maxay tahay? adiga gabadhii meesha ay xoogaa yar ay igu raali geliso, waxay igu tiri isdeji, dhib male, annaga kaa qaadeeno, mar dambe ma dhacayso. taasna way igula yaab badneed intaa istaal ku jiro. horta waa bataan aan la yaabo. horta maqan qof oo warqadaan aqrin inuu kuu keena laga yaabo. laakiin waxaa jirta maahan maalinta daily maxaa cuntada maalintaas oo kaleeto. run ahaantii horta cunto aniga ma cuni jirin. waxaa dhacday xataa miisaankeyga inuu 19 maalmood gudaheeda inuu 10 kiilo iga dhaco.
10 kiilo iga dhacday adiga waxaan noqday 59 ilaa 60 kiilo camal aan noqday istaalkana markaan tegay waxaan ahay 75 kiilo marka murugta iyo lafta qayb ka qaadan aad noqona kadib waa soo noqotay markaan cuntada qaadan waay markuu yarkaan walaalkii aan ku sheegay cunno inuu ii keeno sida hilib yaro iyo ama malabaxoo kale ama bariis iyo ama salaad oo kale kadib xoogaa waxaan isbedel aan soo dareemay oo miisaankeyga maalinba maalin 1 kiilo camal kusoo kordhay wixii ka dambeeyay hadee waaba soo baxay laakiin inta joogta murugay ku aad intaan isbitaalka ku jiray murugay ku aad waxaan u dhararay bil dhalanayso kale inay maalin waxay ugu dhaheen berito waa bixaysaa isdiyaari intaan isdiyaari 10 maalmood kale sii jooga asaasi 19 maalmood isku noqotay tijaabada laga yaabo in kadib marka dhakhtarka ma la xiriiri jirtay markii soo xagga oo maxaa la dhihi jiray kiliyaasho kale dhakhtarka waa la xiriiri jiray waayo waxa laga qaadi jiray dhiig isbuuc walba 2 jeer laga qaadayo markii dambe in ay ugu dhahaan biyaha badan hadda daarto iska yareyn kartaa oo waxay ii qoreen 3 litir inaa cabo markii dambe maalinkii oo dhan adiga digina adiga shugo fiir camal in aan 3 litir cabo waana run qofka markii kaliisa biyo badan dhaxmaraan oo kale xanuun badan oo soo dhuuman lahaa laftirkooda hadda fresh aatay marka alxamdulillah niyo ilaaha mahadis kale kadib waxa bilowday socodka awal ma jeclaan jirtay intaadan bilaabin oo inta viruska kugu dhicin oo kale ka horiyo intuusan viruska ugu dhicin oo kale socodka waan soconi jiray sida gymka oo kale waan dhigani jiray mar dambe aan iska xiray laakiin awoodiya dhumis socodoo kale galbihii oo kale maalmihii marmarka qaar waan socdaa kadib shaqada caadi ugu noqoto waaba kan hadda caadi tahay waxaa kasoo wareegata umaleyn hadda 3 bilood 4 bilood camal bishii 3aad ilaa bishii hadda 8aad ku jirna soo dadka horta inta badan waxay dhahaan qofka markuu ku dhaco kale 5 bilood camal inta badan waxay dhahaan qofka markuu ku dhaco tabar la'aantaas inuu asaga dhan iska noqdo qayb waxa ka noqonaysa moogta inuu qofka uu moraal dilaac u sameeyo wixii maqla dadkii ka baxsan tahay waa fuqu si yar u dareema macnaha ma waxa ka wadaa macnaha qofka markuu soo reysto kale tawar mal camal intuu soo bixin ka hor inta isbitaalka ku jirtay waxyaabaha kaalinta ka qaadana in adii maskaxiyan iyo jismiyan qayb noqotid ana intaan isbitaal ku jiray intaan banaanka joogo intaan banaanka markaan isbitaal ka soo baxan ugu farxad badnaa oo ugu tabar fiicnaadayba ugu tawar fiicnaa laakiin inta isbitaal ku jiray qof ilaa waa taqaana hadee oo inta soo cudur lagu sheego kale oo isbitaalna kaligiisa qol uu kaligiisa ku jiro 19 maalmood qof kaligiisa uu ku jiro sida qof xabsi ku jiro kale dib waxaan u noqonaynaa marka xiriir la sameysay isbitaalka oo contactiga ii la waayay sabab badan iska dhici karo wax walba loo qiimeyn karaa laakiin maysan sahalsan ayuu lafta waxaan la weys halsadeen waxa la sheegay xanuunka qabtid inaan xanuunka qabin u xisaabanaa inta badan dhacdooyin waxaan ku xasuustaa oo Stockholm ka dhacay oo kale trainki B waxay dhahaan dadka ajnabiga ma cadeeyaan xanuunka adiga u cadeeyay oo tiri wala xanuunka dareema xanuuna kale isma marka caawinaad noqoneen laakiin ilaahay taladiisna waa jirtaa waayo waxaan u dhahay coronavirus aan qabaa aqoon uma lihi ana xanuunka coronavirus laakiin xanuunka marka iyada madaxa xanuunayo hore iskuguma arki jirin waxaan isku arki jiray kale waaga Soomaaliya joogo kale ama qaxootigo kale markaan joogo kale waxaan isku arki jiray in malaariyada kale xanuunkiisa uu ka dugnaa markatan aad buu madaxa xanuunay waayo shugufiira timir ama 24 saacadood waxa isaarnaan jiray xanuunkii madax xanuunay kaniinka hadaa cunto intuu kaniinka jirkeyga uu ku jiro oo kilibis aan caafimaad qaba haduu jirkeyga xanuunka kaniinka uu ka baxo xanuunka sidii uu igu soo noqonay marka saas darteeda aan u dhahayaa marka aniga wixii waan qabaa hal caawiyo midi kalena hadee qofka haduu coronavirus uu ku dhaco ma qarin karo haduu qariyane goortay noqoto banaanku iimaani waayo
waxaan wax qarsoomay ma aha haddaa qarisane dee adiga unbaa naftaada micni khiyaanay laakiin xasuusnow xilligaas markii loo fiiriyo wadanka ma haysanin laftirkiisa wacyiga saxda ah waxay dhihi jireen keliya qofka oo xanuunkan qabo waa inuu madax xanuunaa waa inuu inta noqdo calaamadaas basi haysteen ma ogeyn marka in calaamad kale uu ka dugan yahay oo qofkii uu dareemi karo laftirkeeda macquul waa soo baxday caafimaad ilaahay ku siiyey kadib dhakhtarka waxay caddeeyeen inaad waxaan noqon waxay dhahaan ayaga laftirka gaalada ee dhakhaatiirta qofka mar hadduu jirkiisa maro adiga waxaan aniga coronahan viruska aan la jiifay dhanba waa bil laakiin xanuunka keliyaha kuusii dheeraa ku xisaabtan may micni markii laisku daro xanuun wax isbitaal oo dhan markii la isbitaalka oo dhan iyo xanuun oo dhan adiga bille la jiifay 2 isbuuc oo qofka karanteel oo si la karanteelo oo suusan u noqon horta wadanka Sweden waa ogeedo systemka muusan qaadan bacyada afka lagu xirtay iyo magaalada waa isku dhex jiray mid qofan qof iska inisa wadada ku arkaysi waa soo baxday shaqada caadi ugu soo noqotay familkaada waxaad u xiisaysan dib ugu soo noqotay marka xasuusitay isbitaalka dib ugu noqotay xasuusta isbitaalkaada ilaah caafimaadku ku siiyay farqi weyn u dhaxay mid kalena xanuunkan horta mid oo aad iska ilaalin kartid ma Allah subhanahu qaadirka umba ka ilaalin karo asagana ku badbaadin karo aniga xanuunkan meeshu iga soo raacmay sheekar laakiin waxaan ahay qof oo xanuunkan markii la sheegay 4 saac adiga 4 ka saac oo marka ayada gacmahayga meesha taabanayaan ani ma ogi laakiin 4 ka saac gudaheeda gacmahayga mar walba waa dhaqay waan dhaqay guriga aniga ugu hadal badnaayoo dhihi jiray banaanka hadii laga imaado sida asoon qofka dhar iska bedelin waxba iska bedelin soo socda suuliga inuu galo oo gacmaha iska dhaqo oo kadib dharku iska siibo oo dharka markaas banaanka la joogo meeshu ku siibo oo iskaga dhigo oo dhar kale oo nadiif la soo baxo oo qabaysto kale wayna dhacday waxa dhacday anigii saas ka hadlayo oo dadka guriga jooga aan kaga digay inuu aniga ku dhaco sama waxa gacanteena ku hayna ma waxa wixiina marka inaad iska ilaalin karin taas ka mid ah ma ilaalin karin ma fahanti alxamdulillah ma ilaahay intuu ka soo kiciyaaba ka muhiimsan hadda mustaqbalkaaga soo eegaya marka wallahi alxamdulillah mustaqbalkayga hadda sidoo eegyahay ani ma sheegi karo laakiin Allah subhanahu qaadirka og laakiin aniga ahaan meel fiican oo imara alxamdulillah ma adwaadir aadan kaaga madcelina waqtiga qaaliga ah iyo dhacdooyinkaas guud aan la wadaagtay waxaan rajeynaa podcast kale dadkana daawanay mar walba waxay ka faa'iidayaan anaga raadinayna qofka ma aha xanuunka inuu ka baqaayo waxaan ilaahay haduu keeno ilaahay wuu qaadaa صح waa dhalinyarnimo qofkan uu badbaado qofkan saanu noqona ma aha waxaan waa ummad ilaahay keeno inkastoo in fiican tahay xataa laftika in la ilaaliyo xataa isku dhawaanshahaas oo kale xaaladaha hadda la sheego kale ay laftika ay muhiim noqonayso laakiin mar haddii caafimaad la qabo xataa ka qaadashadiisa aniga waxaan dhihi karaa sida hadda sababada oo labada qof oo loogu dhaxaysiina mitir ama mitir iyo bar waxa kamid ah moogta labada qof markay wada hadlayso qof walba isma oga qofka afkiisa waxa ka soo baxay candhuuf yar candhuuftaas waxay fuulaysaa faruurtaada korkeeda fuulay adiga isma ogid waxirka bacda adigoo carabka dhahay camal oo kale is arkaysaa waa qaaday wixii gudaha la gashay jeermiski wuxuu u sii gudbini calooshi marka wixiina calooshi ku dhax fariisani sababtaasna waa marka sababta qofka macnaha 1 mitir iyo mitir iyo bar wax loogu dhaxaysiinayo taas ka mid ah kala fogaashada laakiin Allah subhanahu qaadirka umba badbaadin karo mid kalena ma qarin kartid waxaan hadii aad qarisid tawac ku ma taray cudur waa cudurkana muslim iyo gaal ku dhaca ma kala yaqaano dadkeena waxay u badnaayeen cudurkan markuu bilaawanayo muslimka kuma dhaco ilaahay sheeynaha soo ilaahay maxaa muslimiinta cadaadis ay cadaadinayaan wadan ku dhicin mid way gef la gef way hadan muslim nahay gefa anaga gefna umbo anaga dib noogu soo noqdo laftirkeeda ina dhan maywa kaaga madana Abdul Qaadir waqtigeeda ilaahay adoomadiisa waa u sameeyeen gaal iyo muslim cudurno iska cudur may dadkii u fahmaan calaashan inuu waxa ilaahay keenay iyo taxadirkana la sameeyo ilaa xad inta la taxadiri karo waxyaabaha gaarka hada waxyaabaha la sheego kale in noqoto
وارجينا إنه عذر كان يا ما فيروس كان جيس وبحدون إن شاء الله كما دلنا عبد القادر الوقت هذا خالي وأسوق بقبين برامج.